maamulka gobolka iyo ka degmada Gebile oo ay wehelinayaan guddida abaaraha ee gobolka ayaa waxay si wada jira ugu kuur galeen sida ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladda iyo xaqiiqda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadka ka soo hayaamay gobolada bariga Soomaaliland kuwaasi oo ay tiradoodu kor u dhaafayso 30,000 oo qoys iyo xoolahooga oo tira dhaafay maamulka Gebile iyo guddida abaaraha oo socdaal ay ugu kuur galayeen dadkan barakacayaasha ah ee ku soo barakacay deegaanada gobolka Gebile ayaa dadkaasi waxay uga warbixiyeen baahiyaadkooda waxayna fariin u direen xukuumadda hay'adaha deeq-bixiyaasha ah iyo waliba qurba jooga reer Soomaaliland ilaa 50 qoys oo soo guurtaa baan ku noolaa marka de waa degnay dhaxan baan nahaysa waa xoog waxay ku jiraan in qolalka arigii iyo geeli iyo wixii wadi ka arkay imika dintii halkan dhaxan degnay turiba dadkii ku dhacay wadaha wagidis baad yimid dabeelaha waa dhaxantii dab barafkan iyo diberinkan qaar ciyaalkiisa ay dadkii ninkii maatiir watanada wajiifaan oo gurigiisa ay dawjifaan si qofkii weynaba ka dhaqaaqayba meeshu waa qaboobi way xulna waa ka xumaade wuxuu huwado ma haysto dadku baahay ma laha raashin laftiisa uu baahay ilaahay baa wax bixiyaa raashinka noogu daran dhaxanta aqalama sidanu tayaanu taakule ma ka doonaya dadweynaha iyo dawladda xalan xiriir lix way kaga baqsiyo kooxda turno kalena way ka soo dhimatay dadweynaha dhibaatadu meel walba way saamayso way taaba sidoo kale maamulka Gebile iyo guddida abaaraha ayaa waxay si wada jira dadweynaha reer Soomaaliland iyo xukuumadda baaq dheer ugu direen guddida abaaraha ee gobolka Gebile gobolka dhammaan waxaan isugu nimid inaanu ka warbixino waaqica dhabta ah ee ku sugan yihiin dadkii abaaraha ka soo hayaamay gobolada fogfog ee bariga Soomaaliland ee gobolka Gebile waxay u tafaxaytay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen taakulaynta dadka walaalahooda ee abaaruhu ay ka soo hayaamiyeen deegaanka ay deganaayeen aftay hadda capacity-ga ama awoodii gobolka Gebile waxaan kaliftay inaan baaq qayladana oo dheer aan u diro dadweynaha reer Soomaaliland dhammaantood xisbiyada qaranka intaba waxaan u diraynaa qayladaan dheer oo aan leenahay dadkaasi ha loo soo gudmado sida loo fiin imika waqti xaadirkan waxaynu galay 3 bilood ee jiilaalkii aftii waxaan jecelahay dadka in laga soo gaaro cunto biyo dawooyinka caafimaadka ee dadka waxaan baaq dheer aan dirayaa anigu kolay ku hadlaya afkayga iyo afka golaha iyo afka maayarkaba in dadkii gobolka Gebile ku soo guuray inay caawimo degdeg u baahan yihiin xukuumaddan dirayaa guddiga abaaraha qarankan dirayaa dibadda Soomaaliland baan leeyahay si kormeer ayaan ku soo marnay maalintii khamiistii kormeerkaan soo marnay waxay noqotay inay dhammaan dadkaasi ay ku nool yihiin xiriyo oodan oo kaliya oo rag iyo dumar dhammaantood ay u hooyanayaan ardaaga seexanayaan waxay u baahan yihiin in lagu soo caawiyo hoy raashin guddi waxaan baaq u direynaa dadweynaha faraya qurba joogta iyo cid waloo hawshaas maxay ahayd TV-da ku arki doonaan maxay ahayd dadka soo gargaaraan sida ugu dhaqsaha badanna ay soo gurmadaan dadka ay abaaru ku saameeyeen gobolada bariga oo la oran karo way soo barakaceen inaan report ka soo bixino duruufaha guud ee dadka reer Gebile wixii baahi ah ee aanu aragno dadka in loo qabto oo la oran karo way ku soo barakaceen haleeni ku noolaa gobolada bariga ugu sokeeyo gobolka Maroodijeex gobolka Togdheer gobolka Saaxil Daad Mareed mada waxa way Qoorlugud oo ilaa waxaan filayaa ceel afweyn baa hadda maris almost dadka marka la isku geeyo qiyaasay 30,000 oo qof in soo gaareen gobolka soo gaaray oo tiradooda aan la qiyaasi karin laakiin la oran karo 1 milyan oo neef bay kor u dhaafeen jira dumar iyo caruur xanuunsanaya ayaa jira oo u baahan inaan dawooyin iyo deeqooy ay galaan intaba le dumar xaamilooyin dumar caruurta ka soo dhaceen kuwa uur leh ayaa jira intaba marka kulli wasaaradda caafimaadkuna waa inay caruur dumarka iyo caruurtaasi gooniya ugu soo gudmato waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case Somnews TV gobolka Gebile